bismillaahi raxmaani raxiim waxaanoo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 3 bisha juun sanadka 2026 maalin arbaca ah qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah 2026 muqdisho waxaa ku dagaalamaya siyaasiyiin xil isku haya halka Iiraan oo dagaal ku jirtay sanadii ugu dambeeyay ay xariga ka jirtay isbitaalka ugu weyn ee dalalka galbeedka qaaradda Aasiya oo kansarka lagu daaweeyo gantaaladii dawladda Iiraan ee ku weerartay dalka Kuwait oo sababay dhaawacyo aad u tiro badan xarumaha diblomaasiyadeed iyo goobaha muhiimka ee gantaaladaasi ay burburiyeen Iiraan oo diiday dalabaadka Mareykanka sidoo kalena beenisay inay dilal qorshaysan ay la maagan tahay saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka Qatar iyo Sacuudiga dadaalada diblomaasiyadeed ay wadaan iyo qodobo kale ayaan qaybtan kugula wadaagaya insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo maracadda show barnaamijka falanqaynta caalamka adig iyo asaaga asal waad wadaagtaan arag iyo itaalkiyo inaayana ma dheeride aqoontaad ku dhaaftaa macahadu naafic online waxa ay ku diyaarisay barashada higaada carabiga oo aad muddo yar oo kooban ku baranayso iyo taxfiidka quraanka kariimka ah iyo sidoo kale culumta shareecada sida fiqiga xadiidka tafsiirka siirada iyo luqadda carabiga halka waxa kugu diyaara macallimiin ku hadla afka hooyo ee Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska waxaadna kala xiriiri kartaa nambarada shaashada kaaga muuqda macahadu naafic litahfiidh alqur'aan wa culumihi mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan ku hormarayaa macluumaadka ku saabsan dawladda Iiraan ayaa si rasmi ah u daahfurtay xarunta ugu weyn ee lagu daaweeyo kansarka dalalka galbeedka qaaradda Aasiya waxa xaruntan ay bedeli doontaa xarun horey u duugowday oo ku taallay gudaha dalka Iiraan isbitaalkan waa dhisme casri ah oo cusub kana kooban 18 dabaq waxa lagu qalabeeyay teknolojiyadda caafimaad iyo qalabkii caafimaad ee ugu heerka sarreeyay iyo in ka badan 610 sariirood laakiin taa beddelkeeda magaalada Muqdisho maanta sanado kadib waxaa laga maqlayaa dhawaaqa rasaas colaadeed oo ay isku ridayaan askar kala taabacsan siyaasiyiin xil iyo dana shakhsiyadeed isku haya waxay rasaastaasi ay sababtay marka dhimashada iyo dhaawaca dad badan oo shacab ah oo saakay shaqadoodii qaarkood u kalahay يعني wax aqbaaran aan ka haysan waxa ka soconaya gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho dad shacab ah oo guryahoodii iska joogay iyo dad doonaya nolol maalmeedkooda inay raadsadaan waxa dagaalamaya haddana mar kale waa ciidan madaxdoodu ay ku jiraan gawaari aysan xabad karin mukayfka iyo qabowgana uu ku daaran yahay waxa lagu dul dagaalamayana waa dad shacab ah oo la burburinaya hantidooda waxyaabaha ka soo kordha waan arki doonaa markaan aan eegno dalka Iiraan aan dib ugu soo laabano warbixintii isbitaalka isbitaalkan oo maalintii shalay laga daafuray magaalada Tehran oo caasimadda dalka Iiraan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Mohammad Reza Zafargandi xaruntan waxaa la sheegay inay ku fadhido dhul gaaraya 60,000 oo mitir oo laba jibaaran waxaa loo qorsheeyay inay noqoto xarunta ugu muhiimsan ee dalka u qaabilsan ka hortagga baaritaanka iyo daweynta noocyada kala duwan ee kansarka 37 waaxood oo takhasusyo kala duwan ayuu isbitaalkani leeyahay 11 qalab oo loogu talagalay sawir qaadista caafimaadka iyo daweynta shucaaca ee radiotherapy-ga ayaa sidoo kale xaruntaani la geeyay waxa kale oo halkan yaala 96 sariir oo hal mar lagu qaabili karayo bukaanada qaba ama qaadanaya chemotherapy haddii si kooban aan kugu sharaxo chemotherapy waa habka daaweynta ee lagu dilo ama lagu xakameeyo unugyada kansarka iyadoo la adeegsanayo daawooyin xoogan oo marka qofka uu kansar uu ku dhaco unugyada kansarka si degdeg ayay u tarmaan daawooyinka chemotherapy-gana marka waxay weerarayaan unugyadaasi si ay u dilaan unugyada u joojiyaan koritaankiisa u yareeyaan burada sidoo kalena u xakameeyaan faafitaanka kansarka ee jirka sidaa daraaddeed marka waxay ka dhigan tahay hal mar 96 ruux in chemotherapy loo samayn karayo agaasimaha guud ee xarunta isbitaalka Imam Khomeini ayaa waxa uu sheegay in isbitaalka sidoo kale uu leeyahay 19 qol oo hal mar qalliino lagu sameyn karayo iyo qalab casri ah kuwaas oo si weyn u horumarinaya adeegyada caafimaad ee kansarka iyo daaweynta cudurrada u baahan takhasusiyada sare gudoomiyaha jaamacadda cilmiga caafimaadka ee Tehran ayaa dhankiisa sheegay in muddadii lagu guda jiray dhismaha iyo qalabaynta xaruntan in dawladda Iiraan ay la kulantay 2 dagaal hadda waa 2 dagaal oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ku soo qaadeen bal eeg marka Iiraan oo 2 dagaal la kulantay cunaqabatayn la saaray ayaa haddana waxay dhistay
cisbitaal 18 faloor ama 18 biyaano ama 18 dabaqsiyaad u fahmi kartaba ka kooban, kaas oo noqonaya haddana midka ugu weyn wadamada galbeedka qaaradda Aasiya. baleeg annagana maanta maxaan isku haysanaa? aan ka soo laabanno macluumaadkan. wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kuwait ayaa ku dhawaaqday in hal ruux uu dhintay 63 kalena ay ku dhaawacmeen duqeyntii dowladda Iiraan ay ka fulisay garoonka diyaaradaha caalamiga ee dalkaasi Kuwait. weerarkan ayaa sidoo kale sababay burburka iyo dhaawacyo soo gaaray xarumo muhiim ah iyo xarumo diblomaasiyadeed sida wararku ay sheegayaan. waxaa la isweydiinayaa, dhismayaasha diblomaasiyadeed ma garoonka dhexdiisa ayay ku yaaleen mise meel ka baxsan ayay gaartay gacanta dowladda Iiraan? hay-adda duulista rayidka ee dowladda Kuwait ayaa sheegtay in dhismaha rakaabka ee garoonka diyaaradaha lagu weeraray gantaale iyo diyaarado daroonis ah, taasoo keentay dhaawacyo badan iyo burburka ku yimid qaybo badan oo garoonka ka mid ah. mas-uuliyiintu waxaa kaloo ay sheegeen in qorshaha gurmadka degdega si dhaqso ah loo howlgeliyey kadib markii weerarkaasi uu dhacay. sabab la xiriirta xaaladaha dhanka amniga, dhammaan duulimaadyadii garoonka ayaa si kumeel gaara loo hakiyey. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kuwait ayaa arrintan aad kaga carootay, waxaana loo yeeray 2 ka mid ah saraakiisha diblomaasiyadeed ee dowladda Iiraan ee dalkaasi Kuwait. ciidamada qalabka sida ee dowladda Kuwait ayaa dhankooda sheegay in 13 gantaal oo balaastiig ah iyo 17 diyaaradood oo daroonisa in lagu weeraray maanta, taasoo ka dhigan in jahwareer uu ku dhacay nidaam difaaceedka dowladda Iiraan. ciidanka Kuwait waxay xaqiijiyeen dhankooda hal ruux inuu dhintay, ruuxaas oo la sheegay inuu ahaa muwaadin Hindi ah, halka ay dhaawacmeen muwaadiniin Kuwait u dhashay iyo dad kale oo ajaanib ah. xarunta dhexe ee Mareykanka ee CENTCOM ayaa sheegay maanta inay ka hortageen duqeymaha, laakiin warbixinta dhanka Kuwait ka imaanaysa gabi ahaanba waxa ay beeninayaan sheegashadii ciidanka CENTCOM ee ahaa in gantaalada dowladda Iiraan ay ka hortageen. dhanka kale, ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa sheegay in gantaale iyo diyaarado daroonis ah ay ku weerareen saldhigyo military oo Mareykanka u leeyahay iyo xarunta shanaad ee ciidamada Mareykanka ee dalka Bahrain, waxaana ay sheegeen tallaabadan inay kaga jawaabeen weerar Mareykanka uu ku qaaday mid ka mid ah xarumaha isgaarsiineed ee jasiiradda Qashim iyo markab la sheegay inuu shidaal siday oo dowladda Iiraan ay leedahay. Iiraan ayaa sidoo kale Mareykanka waxa ay ku eedeysay in uu bartilmaameedsaday xarumo kale oo muhiim ah ku yaala koonfurta dalkaasi Iiraan. labaduba markaad eegto natiijada soo baxaysa iyo khasaaraha rasmiga, waxaad moodaa warbixinadooda inay ka duwan yihiin natiijada. maxaa yeelay Kuwait waxay soo bandhigtay garoonkii la burburiyey iyo dadkii dhaawacyada ay soo gaareen. dhinaca kalena, dowladda Iiraan ayaa si adag u beenisay eedeymo uu soo jeediyey xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Marco Rubio, kaasoo sheegay inay Tehran ay qorsheynayso in ay dilal qorshaysan ay ku bartilmaameysato saraakiil Amerikaan ah. dowladda Iiraan waxay tilmaamtay hadalladaasi inay yihiin kuwo sal iyo raad aan lahayn, isla markaana Washington ay isku dayayso inay muujiso sida inay dhibano ay tahay, si ay indhaha caalamka ah ay dembiyadii ay geysatay gebi ahaan uga leexiso, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan. Marco Rubio ayaa sheegay in Iiraan ay doonayso inay si gaar ahaaneed u beegsato saraakiil iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Mareykanka, kuwaas oo gobolka Bariga Dhexe ku sugan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda qoraalkiisa uu soo dhigay barta Twitterka waxa uu yiri, qof kasta dadka kale waxa uu ku qiyaasaa sida uu isaga u fikirayo. yacni wuxuu taagan yahay Mareykanka isaga ayaa ku fakaraya, qorsheynaya inuu beegsado saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Iiraan, laakiin taa beddelkeeda Iiraan ayuu eedeymo u jeedinaya, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladdaasi Iiraan. ugu dambeyntii, la taliyo sare oo ka tirsan hoggaanka dowladda Iiraan ee arrimaha militariga oo Muhsin Raisi lagu magacaabo, wuxuu sheegay Tehran in aysan ogolaan doonin waxa uu ku tilmaamay dalabaad xad dhaaf ah oo kaga imaanaya Mareykanka, ha ahaado wada hadalla socda ama geedi socodka xabajoojinta. waxaa sidoo kale ugu digay Washington in weerar kasta oo cusub uu keeni doono jawaab cusub oo dowladda Iiraan ay bixiso iyadoo gantaale iyo diyaarado daroonisa adeegsanaysa. hadalkan wuxuu imaanayaa xilli cadaadis ay wajahayso dhexdhexaadintii dowladda Pakistan, waxaadna moodaa ilaa iyo iminka inaan lagu guulaysan natiijo kama dambaysa. waxyaabaha ka soo kordha qodobkan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. dhinaca kalena, dowladaha Qatar iyo Sacuudiga ayaa waxa ay si wadajir uga shaqeynayaan dadaalana ay ku bixinayaan sidii xiisadda gobolka loo qaboojin lahaa, sida telefishinka Al Jazeera uu baahiyey kadib markii maanta telefoonka ay ku wada hadleen wasiirada arrimaha dibadda ee labada dowladood, Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani iyo Faysal bin Farxaan oo wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa sidaasi lagu sheegay, labada dowladood ayaa si weyn kaga walaacsan xaaladaha gobolka ka jira, iyaga oo doonaya in dagaal aan dib loogu laaban wax walbana la soo gabagabeeyo.
dhinaca kalena markabka dagaal ee maraykanka laga leeyahay ee xambaari karaya diyaaradaha dagaalka ayaa lagu waramayaa inuu hadda gaaray biyaha gacanka Cumaan iyada oo Iiraan la doonayo in go'doominta ee laga qaado gabi ahaan. Iiraanna waxaad muddaa wili culeys in la saarayo culeyskaas oo ah in ugu yaraan ay ogolaato wadahadallada diblomaasiyadeed ee xalka loogu helayo dagaalka, iyadoo Maraykanka iyo Israel ay doonayaan dagaalka in la soo gabagabeeyo. Haddana mid kasta wuxuu doonayaa in aragtidiisa la qaato. Waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku falanqaynaynaa insha Allah. Warbixintan waxaan ku eegi doonaa falanqayn ku saabsan hubka cusub ee sida weyn looga hadalhayo xarumaha militariga caalamka, gaar ahaan dowladaha si gaar ahaaneed indhaha ula raacaya Shiinaha iyo wax soo saarkiisa dhanka hubka. Gantaalka lagu magacaabo BL-16. Inkastoo Shiinaha weli uusan si rasmi ah u shaacin mashruuca gantaalkan, haddana warbixino badan oo soo baxaya oo laga soo xigtay khubarada iyo xarumaha difaacu waxay tilmaamayaan in Beijing ay horumarinayso gantaal awood u leh inuu bedelo qaabka dagaalka dhanka cirka loo galaya mustaqbalka. Su-aasha ugu weyna waxay tahay, maxaa gantaalka BL-16 ka dhigaya mid cabsi gelinaya ciidamada cirka ee Maraykanka iyo xulafadiisa? Marka hore, aan fahanno gantaalkan waxa uu yahay iyo macluumaadka laga sheegay. Wararka la helaya waxay tilmaamayaan in gantaalka BL-16 uu gaari karayo masaafo ka badan 300 oo kiiloomitir oo dhanka hawada, halka qaar ka mid ah falanqeeyaasha ay sheegeen in bartilmaameedka ugu yaraan uu gaari karayo ilaa 350 kiiloomitir. Haddii taasi ay run noqotona, gantaalkan wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah gantaalada hawada ee ugu fog dunida. Laakiin masaafada kaliya ma ahan wax gantaalka ka dhigaya mid gaar ah. Waxa ugu muhiimsan waa nidaamka cusub ee matoorka oo loo yaqaano VTB, Variable Thrust Propulsion. Gantaalada caadiga ah marka la rido waxay shidaalkooda ay ku gubaan marxaladda hore, kadibna waxay ku tiirsanaadaan xawaaraha ay iyaga ay helaan. Taasi waxay keentaa in marka masaafo dheer ay socdaan ay lumiyaan tamarta iyo awoodda ay ku dabagali karayaan bartilmaameedyada dhaqaaqaya. Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. Ku dooro baaritaan la hubo, daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. Laakiin BL-16 sida lagu sheegay warbixintu wuxuu awood u leeyahay inuu maareeyo isticmaalka shidaalka inta hawada uu ku jiro. Haddii si fudud aan kugu sheego, gantaalkan wuxuu kaydsan karayaa qayb ka mid ah tamartiisa, kadibna dib ayuu u sii kordhin karayaa xawaarihiisa marka bartilmaameedka uu ku dhowaado. Taasi micnaheedu waa in xitaa haddii bartilmaameedku isku dayo inuu baxsado ama uu sameeyo dhaqdhaqaaqyo adag, gantaalkan weli waxuu helayaa tamar kale oo ku filan si uu weerarka u sii wado. Haddaba, yaa bartilmaameedka ugu weyn u noqon karaya gantaalka BL-16? Falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in ujeedada ugu weyn ee gantaalkan Shiinaha u soo saaray inaysan ahayn kaliya soo ridida diyaaradaha dagaalka, laakiin hadafku waxa uu noqon karayaa in diyaaradaha taageerada bixiya ee Maraykanka sida diyaaradda Akawas, kuwa shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha kale iyo diyaaradaha sirdoonka in lagu bartilmaamaysan karo. Sababtu waxay tahay in ciidamada cirka ee dowladda Maraykanka ay si weyn ugu tiirsan yihiin diyaaradahaasi. Marka diyaaradaha F-35 iyo F-22 ay hawada ku jiraan, waxay u baahan yihiin inay xog ay ka helaan diyaarada Awakas loo yaqaano iyo kuwa shidaalka siinaya si ay in badan hawada ugu sii jiraan. Haddii diyaaradahaasi muhiimka la cabsi geliyo ama ugu yaraan laga fogayo goobta dagaalka, awoodda guud ee ciidamada cirka ee Maraykanka si weyn ayay u yaraanaysaa. Waana sababta Shiinaha uu u soo saarayo gantaalkan. Tusaale ahaan, haddii dagaal uu ka dhaco agagaarka Taiwan ama badda koonfureed ee dalka Shiinaha, ciidamada Maraykanka waxay ku qasbanaanayaan in ay diyaaradaha Awakas iyo kuwa shidaalka hawada ku siiya kuwa kale ay ugu yaraan 100 kiiloomitir ay dib ugu celiyaan goobta dagaalka. Taasi waxay yareynaysaa waqtiga ay diyaaradaha dagaalka hawada ku sii jiri karayaan, xogna ay ku heli karayaan si ay meelo badan u bartilmaamaysadaan. Qodobka kale ee muhiimka ah waa in gantaalka BL-16 loo yaqaano ula jaanqaadi karaya diyaaradaha qarsoon ee Shiinaha sida J-20 iyo J-35 oo mustaqbalka uu doonayo Shiinaha inuu soo saaro. Taasi oo micnuhu yahay in diyaaradahaasi qarsoodida ah ay u dhowaan karayaan bartilmaameedka, kadibna ay ridi karayaan gantaalka aadka u fog oo ay adkaan karto in la ogaado ilaa daqiiqadaha ugu dambeeya. Dhanka kalena Maraykanka ma ahan mid isagana gacmaha laabanaya. Washingtonna dhankeeda waxay horumarinaysaa gantaalkeeda cusub ee AIM-200 loo yaqaano, kaasoo loogu talagalay inuu ka awood bato gantaalka BL-15 ee Shiinaha uu soo saaray. Sidoo kale Ruushka wuxuu adeegsanayaa gantaalkiisa R-37M oo ah gantaal aad u fog oo markiisii ugu horreysay dagaalka Ukraine lagu arkay. Sidaa daraaddeed,
waxaan markhaati ka noqonaynaa tartan cusub oo dhanka hawada ah. tartankanina kuma salaysna oo keliya diyaaradaha dagaalka, laakiin wuxuu ku saabsan yahay cidda awood u leh inay marka hore ay burburiso xarumaha maskaxda u noqonaya ciidanka cirka, sida diyaaradaha digniinta hore bixiya, kuwa shidaalka siiya diyaaradaha kale, iyo kuwa sirdoonka. inkastoo gantaalkan BL-16 aan weli si rasmi ah loo soo bandhigin, haddana durbaba wuxuu walaac ku abuuray qaar ka mid a dowladaha qaaradda Yurub. aragtidaada nala wadaag, like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada. waad mahadsan tahay.